Soomaaliya israacdo bridge isku xiri lahaa Soomaaliya waa laascaanood Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha israacdo ilaahay baan ka baryaynaa bogoda burcad ilaahay inuu soo mariyo guushi Soomaaliya alla soo celi guushi Soomaaliya alla soo celi rabbi oo guushi Soomaaliya booqashadan taariikhiga ah oo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre uu ku tagayo maanta magaalada Laascaano ee gobolka Sool ee maamulka Khaatume State ayaa noqonaysa tii ugu horeysay oo ra'iisul wasaaraha Soomaaliyeed oo xilka fadhiya uu ku tago deegaanadaas tan iyo 91 markii ay burburtay dawladda dhexe ee Soomaaliya booqashada ra'iisul wasaaraha uu ku tagay goboladaasi ayaa waxa ay qayb ka tahay dadaalada dawladda Soomaaliya ee ugu jirto xoojinta midnimada iyo dib u heshiisiin guud oo ka dhacda dalka Soomaaliya qaar ka mid ah xubnaha jaaliyadda oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa waxa ay yiraahdeen marka hore magacaygu waa Cali Dhuux waxaan rabaa fursadan qiimaha badan oo i siiyay TV-ga qaranka Soomaaliyeed ee Australia anoo marka hore mahadnaqay walaalka Ibrahim oo runtii baahi weyn oo loo qabay TV-ga qaranka Soomaaliyeed inuu yimaado Australia aadna aan ugu faraxsanahay inaan soo dhaweeyo hambaliyeeyo una mahadnaqo xukuumadda uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo wafuudda ballaaran heer wasiir baarlamaan iyo gudoomiyaalba leh ee yimid magaalada madaxda gobolka Sool ee Laascaanood SC Bismillahir Rahmaanir Rahiim waxaan halkan hambaliyo bagaad uga soo jeedinayaa dawladda federaalka Soomaaliya ugu horeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dal xoreeye talaabada geesinimada leh ee ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre dal mideeye uu ku aadayo magaalada Laascaanood xarunta maamul goboleedka Khaatume State of Somalia waxaan qirayaa ama ay xaqiiqadu tahay in maanta dawladdu ay samaysay talaabo ku dhac leh oo u qaaday xagga guusha aad iyo aad baan kaaga mahadcelinay Ibrahim adiga iyo telefishinka qaranka aad noo timaadeen maanta waan isugu nimi inaanu u mahadcelino ummadda Soomaaliyeed madaxweynaha ra'iisul wasaaruhu ay ka yihiin 1 iyo 2 waxaan aad u soo dhaweynaynaa waan maanta farxadeeda aan halkan isugu nimi inaan Soomaaliya la wadaagno midaynta ummadda Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed waxay dal u tahay qof kasta oo Soomaaliya Soomaalidu dhibaato xoog la gaadhay in la walaaleeyo dawladdu meel kasta gaadho future kala caruurteena waqti badan dib iyo haraad ku soo jiray in dibdib aan u dhicin hambalyo Khaatumo hambalyo waxaan halka ka hambalyaynaynaa insha Allah anagoo ah odayaasha malbo tegista uu tegahayo ra'iisul wasaare Xamse magaalada Laascaanood aad iyo aad baan ugu hambalyaynaynaa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya labadaba Soomaaliya 32 sanadood bay warwareegaysaa ama 34 ba iska dheh yaa dawlad la'aan lahaa gobolkaana waad ogtiin wixii ka socday dagaal waa laga daalay Soomaaliya waa ka daashay maanta Khaatumo waa in loogu dhawaaqaa midnimada macnaha maamul goboleedkeedii buuxa insha Allah waana istaahishaa 100% waxa weeyaan waa bridge-kii Soomaaliya isku haye weeye adaad maqashaan Khaatumo waana halgamayaashii daraawiishta insha Allah waad ogtihiin Ingiriis iyo ayaga waxa soo kala maray dad ka badan 50,000 baa ku dhintay Ingiriiskii oo diyaaradihii Afrika ugu horeeyay lagu duqeeyay intaana waxay u dagaalamayeen midnimo Soomaaliyeed booqashada ra'iisul wasaaruhu waa soo dhaweynaa waana boonti qodob aad iyo aad u fiican muddo dheer buuna qaatay sidii dawladda Soomaaliya ee ugu dambeysay ay u burburtay gobolka Laascaanood ma aanu imaanin mas'uul Soomaali sharci ah oo dawladda Soomaaliyeed ka socda waqtiga dheer ee gaabka uu qaatayna wax ilaahay qadaray iyo duruuftu sida ay ahayd ayay ku timi laakiin waxaanu aragnaa in ay maanta suurta gashay inaan mas'uul sare oo dawladdii ka mid ah iyo xubno baarlamaan tiriye iyo mas'uuliin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo madaxweynaha ka yahay mudane Xasan Sheekh Maxamuud inay maanta ay soo gaareen magaalada Laascaanood booqashadeeda arrintaasi waa arrin wanaagsan waana wuxuu xaq u leeyahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya inuu gobol kasta oo Soomaaliya booqdo waa xaqiisa sharciga waana wadankiisa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وحنا كان سجون ميادي أنا نهاي شالية دي أساسي خاتمه
inaanu u muujino taageero iyo midnimo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo xukuumaddiisa baarlamaanka federaalka iyo dawladda oo isugu timid Laascaanood. halkan waxaan maanta kula kulmay TV-ga qaranka horta waa u mahadcelinayaa marka ugu horeysa TV-ga qaranka Soomaaliyeed iyo tiimka ka shaqeynaya ee halkan maanta aan kula kulmay waxaan ahay oday Soomaaliyeed kana soo jeeda maamulka Khaatume State marka ugu horeeya waxaan salaamayaa dadka Soomaaliyeed oo dhan dhammaan dadkii goobta isugu yimid ayaa waxa ay muujiyeen farxadda in maanta ra'iisul wasaaraha qaranka uu booqanayo magaalada Laascaano. Ibraahim Daa'uud Ibraahim Baa warbaahinta qaranka magaalada Melbourne ee dalka Australia.